waa kal kale iyo barnaamijkeennii suugaan iyo sooyaal. barnaamijkeena suugaan iyo sooyaal waa barnaamij diiradda saaraya suugaanta hodankaa ee aynu leenahay, suugaantii la tiriyey waayadii hore ee ay noolaayeenna cabdalla xasan, qamaan bulxan, cali dhuux iyo halabuuradii ka horreeyey, racii dhexe ee hadraawi, cabdiqays, cabdiqaadir xasan siyaad, yamyam, xasan genay iyo racii la mid ahaa ay calanka u hayeen, iyo da-aadda hadda maansa curinta bilaabay ee suugaanta cuddoon, maansooyinka ay ku sawiraan iyaguna waajibka la gudboona nolosha ka saaran. dhegeystayaal, waa mar saddexaad iyo waa mar afraad oo aynu ku gorfaynayno barnaamijkeena suugaan iyo sooyaal. barnaamijkan waxaa inoogu martay caawa aadan cabdi maxamuud oo ku macaan magac dheer aadan shaaciye. waxaan u baahanay horta aadan iyo bulshadu inay isbarato. horta aadanow, marka la yidhahda aadan shaaciye waa hal abuur da-yar oon da-diisu weyneyn, haddana hal abuura. bal markaynu ka nimaadna hal abuurkaaga iyo suugaantaada badda ah aanu nidhaahno horta aadan waa kuma. bismillahi raxmaan raxiim. aadan cabdi maxamuud waa mid ka mid a uun bulshada ku nool magaalada Hargeysa, waxna tiriyo hal abuurka ku abtirsada baan u malaynayaa. taariikhda miya taariikhdayda waxaan dhashay dabayaaqadii 1997 waxaan ku dhashay tuulada Abdaal la yiraahdo. dugsigii hoose halkaasaan kusoo dhigtay, kii dhexe iyo kii sarena waxaan ku dhigtay Hargeysa. imigana Hargeysaan joogaa. waa tahay aadan shaaciye, goormay ahayd markii ugu horreysay aad isteedaa laylaha aadan waxbuu curin karaa, aadan hiba hal abuur baa ku jirta, dareenkaaga inaad erey macnaha ereyo aada u bedeli karto goormay ku dhalatay? beri hore anigoo yar ayaa waxaan raadiyaan dhegeysanayay baa waxaan ka maqlay waxyaabahan maqlo, ama hees ha ahaato ama gabay ha ahaato. maalin maalmaha ka mid a baan hees maqlay, heesta la yidhaaho qoraxda aroortii qaybisay fallaadhaha. xasan aadan qaado. xasan aadan haa. waa tahay dabeedna malaa 2007 meelahaas ayd baan malaynayaa. heestii baa layga baktiyey, dabeedna anoo yar dhegeysanayay. waa caruur baan ahayo. waxaan dabeedna jeclaaday bahashii, 2 midh baan ka qabtay, laxankii baan raacayoo maalintii oo dhan baan heesayay. laxankii iyo xarafkii iyo waxaan anigu samaystoo kale oo fara badan. haddana maalin dambe raadiyo Jabuuti waxaan ka dhegeystay nin kaloo jacbur yar tirinaya, waxaa ka booday daaqad, bisad baa ku dhacday jiir, waxa ay kaasoo tirinayay. kiina waan jeclaado, 2 midh baan isla ka qabtayoo isagiina wax kalaan ku darsaday. intaa kadib wax caadi oo maanso ah waxaan bilaabay 2013. gabaygana waxaan bilaabay 2015. hal abuurkii ugu horreeyay aad curisay marka laga yimaado deetaa aad ka tiraacday waxa weeye tixraacday heestaas, wax ma ka xasuusataa wixii ugu horreeyay aad afkaaga soo mara ee ka madax bannaan wax hore loo yidhi? ma xasuusni mee 2013 ahayd baan malaynayaa. guriga way taallaa laakiin ma xasuusni magaceeda. waa tahay hal abuurnimadan iyo hibadan hal abuur ee kugu jirta, inkastoo dadku kala aragti duwan yahay hibada iyo hidaraacaba, dadka qaarkood aaminsan inaan hiba iyo hidaraactoona jirin. adigu curinta maansada ma hibaad u aragtaayo wax alla kugu galladay, mise waxaa jira cid qoyskaaga ah oo ha dhawaata ama ha dheeraata ee hibada hal abuur lahayd? ma jirtaa? haa, way jirtaayo edaday baa jirto gabayda oo gabayga tirisa. intaa kadib cid kaloo wax tirisa garan maayo oon edaday ahayn. waa tahay suugaanta edada wax ma ka haysaa? haa, dhowr gabay baan ka hayaayo ay ka mid tahay tuduc baan ka xifdiyeyo. waa tahay waxaa ka mid ahay diintuu ku maamula haddii daa'inideesiiyey baa ka mid ahay gabay markii dalka lasoo galay kula talinaysay madaxdii dalka. waa tahay suugaantaada haddaynu nimaadno waxaa ka mid a tix la yidhaha tudhaale. weliba saan jeclay waa gabaygan tudhaale xilliguu soo baxay, dareenka uu xambaarsan yahay, iyo adiga laftigaaga wixii kugu tuquntuqiyey inaad gabaygaa aada lifto. gabayga tudhaale wuxuu soo baxay 14 bishii 2 2017. waa tahay markaa waa gabay ka hadlaya deegaanka. markaa waxaan arkay in gabayo badan oo deegaanka laga tiriyey, dabeedna waxaan u qaatay inaanay dadkani gabay kaga joogsanayn,
dabeedna gabaygani wuxuu ka warramayaa in waxyaabo badan loogu turi waayo deegaanka oo tusaale ahaan dhirtu mar waa daw oo mar waxay noqotaa hoy oo mar waxay noqotaa waxyaabo badan dee mar waa dhooni mar waa hub marka waxaasoo dhan buu gabaygu taxayaa u leeyahy intaasoo dhan haddii loogu turi waayey dee malaa wax kaloo ay dadku wax ku qaadan kariyeen ma jiro waan malaynaya waa tahay midhaha gabayga maxaa badata gabaygu wuxuu ku bilaabmayaa tixda gabay tudhaalaha murtida tabinta suugaanta tirsi iyo waxaa lagu unkaa saliya taariikhe tixraac iyo waxaa lagu yaqaan mahadho toolmoone iska tiriyayuun lama yidhaa tabashadaydii talo iyo tusaaliyo tilmaan taargad iyo toosin marka lagu taxaabay murtidu taamil noqotaaye 70 baan leeyahay iyo waabay tiro dhaaftay iyo 10 haloo taabagala taaban kari maayo tuducaan macnuhu taam ahayn tookhna daba yaallo wax ma taro xalaan tiriyayo waa tixaan sidee tiiqtiiqsi baydgaabadoon dhab ugu tiigaalin waa inaad tilmaan buuxda iyo talada siisaa tusmadaan u jeediye haddaan gobo'da kuu taabto deegaanku wuxuu kuu taraan kuugu tibix siinne bal waxaan ku taabsiin karaan hoga tusaalayn tus onkoday waqalkoo tif yidhi tumayga oo horay jirda gooye taagtii da'iyo togaga oo xiimay todobkiyo jirkoo toosu helay mayayga oo tiixay manka iyo tigaad iyo cagaar dixida oo taagan arad maadhu wada teedsantoon taa ka dhuli muuqan tamashliya dalxiis lagu tago loogu turi waaye taxtaxaashka raaxada wataa lagu tilmaamaaye dhirtu waa tabtaan sheegay iyo weliba taartaare inay tiirka nolosheena tahay tacabka mooyaane taakula inay noo ahayd taagan weligeedba iyagaa tudhaaliya lahaa quruxda tolmoone kol hadday tasoobaan ilayn waa tu aan jirine togga jeexan tobanaanka gebi bahoolahaa taagan tub xargagan iliilada turqamay tiixa wada qaaday bal inuu tabaalaha ka jiro loogu turi waaye guri taagan tooxdiisa iyo agabta hoos taalla tiska ooda tiir xoog lehoo lagu tanaadayo tiro adhyabaa loo tumaa tiixa oo go'aye bal inuu tabaalaha ka jiro loogu turi waa tafantoofka cudurkiyo bukaan wada tabaaloobay taagtiyo haddii laysku daro garashadoo taama tabihiyo ujeeddada haddii tababar loo qaato bal in tikidhka laga maarmi karo loo tixgelin waa adoo gaajo tiicaayayoo tacajaboo yaaban sahaydaadu tiioy go'doon laguna taageerin tuugmada waxaa kaaga dhow tiigsigoo qudha e bal inuu ku soo tiirin karo loogu turi waaye matabaaladoodu qalbigu taamuladi waaye mahmaahda toolmoon haddaan hoga tusaaleeyo 3 baa u taag daran raggay tabinayeenuune nimay taagtu yara caawisoo ganafka taagaya iyo taranta kii caydhiyaa lagu tilmaamaaye nimay taagtu yara caawis nin tolkiisa caayaa la yidhi tuhun daraaddiiye nimay taagtu yara caawisoo ganafka taagaya iyo taranta kii caydhiyaa lagu tilmaamaa waxa taa ka sii daran qofkii tiisa daayacaye dhirta ruux tumaatiyey mar kale yuu tawaawicina 3 baa u taal baa la yidhi talo nin waayeele halka u timi halka u taagan iyo halaal tagoo dhaafay intaynaan tollaayayda iyo toosta kor u qaadin hadhuubkaa la tuuraa la yidhi toosi dabadeede tifkolaan ku gaadhnana wuxuun taamil ugu qaata gabaygu intaas ugu dheyn waa tahay oo dee dhirta in la ilaaliyo oo lagu dadaalo oo la xasuusnaado dee waxtarka ay leedahay waa muhim in qofka xagaafaya ee gudinta sita ee manaxanada qaawinaya dhirtana dee inuu ka waantoobo oo uu u turo dhirta deegaanka dee deegaankoo la xaalifiyana waxyaabaha keena abaaraha iyo dhibaatada imikayna haysataba ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa ka jarayana inuu u furo faraj kale oo uu ku dee shaqaysto dee dowladda xilligaa jirtaana ay u samayso ummaddan qorshe ka duwan dhuxusha waa tahay maansooyinka waxaa kaloo ka mid a gabayadaada tixda faallo la yidhaah faallo goormay soo baxda faallo waa bishii 8aad baan malaynaya 2016 marka waxay ka hadlaysaa iyaduna waxyaabo bulshada dhexdeeda ka jira oo fara badan oo ka mid yahay bahalkan musalsalka la yidhaahdo oo bulshada imika dhaqankeeda aad moodaba inuu bedelayo dee dhaqan doorinuu ku wadahaa waxyaabo badan oo laga bartay intaasoo qoysoo ku burburtay oo la sheegayo waxaa kaloo la sheegayaa waxyaabo badan oo inaan aqoon oo uu filimku keenay ama laga daawaday ama laga bartay
halkaasuu daaran yahay. waa tahay maxaa ka mid a markaa meelisyadiisa? gabayga waxaa la faallaa la idhaahdaa. markaa wuxuu odhanayaa faatixada eebbaan ku furay faalladii gabay ninba fahanka arartuu dhisuu faaniyaa abide markaasuu falaad soo qortaa amase foolaad fooq dheer anoon fuulinoon fikirra soo dheegan inta uu filkay sheegi karo waan fasirayaaye fiilkiyo waxaan soo arkaan fiidkan qorayaaye bal u fiirso raadkii halkan fadalka gaadhsiiyo mahmaa filkii hore yidhoon laga fogaanaynin haddaan keeno foolkiinna oon yarahe faahfaasho wixii fiilku qaban waayo ood fahato leebkiisa ama aad is leedahay fidmaa fanaxa soo saari falkii xuni intuu koobayaad fadal ku gaadhaaye finka yari mar buu fiix noqdaa amase faaraaye fikraddii qalloocani mar bay fara ka haadaaye filimada lasoo duubay waa fadhadhaqdoodii ka fogaada waxay faafiyeen faasiqnimo weyn fidno iyo waxay faafiyaan waa fusuuq midhana fisqi baahay faallada ibliis cawro lagu faano dhar la faydo xumaha fatahay diinta laga foogay af la feento foodada la-aan fiidka lagu meero faqrigaa dhacaya iyo abaar faydo sharaftooda fulaankiiyo hablahan fiidka baxa fiidyahaa baree fudfudayd macaasida u fuli faanna lagu moodi firxashada dhallaankiiyo waxay fidinayaan ceebe uma fiicna diintii iyo sharciga iyo funuuntii reer fiican oo khayr qabay kala fogeeyaane ifur badatay qoys kala firxada ubadka fiigaya falanqeeyey oo eegay oo fiirshay taladaase fursad xumaha loo sii maruu fidiyey maandhoowe fagaaraha waxaan laga aqoon filimku ii keenye ka fogaada wuxuu faafiyaa faasiqnimo weyne afartaa ma faahfaashay oo fiirsi ma u sheegay ma u digay dadkaygii fadhiyey foorar waa halise mid fajaca midaan iba fahmayn ruuxii falanqeeya saddexduba maruunbay fahmayay balaanu faalleeyo fijaas nabara leeb iyo fallaadh eebe iyo faashba filginkiisa ruux kugu midood fiira garanayso maruunbaad fayoobaan hadduu feedha kaa jaro adigoon filayn ruux ku dilay oo ku fara saaray fidma gaadmaduu kugu dilaa waanu faa'iidiyo sharcigaa furqaan iyo haddaad diinta filanayso ama aad fasiratood micnaha fahanto ood raacdo fikir gaala keentaa marnaba faasax muu noqonne diintoo mar laga faaruqay abid ku foognaanne fartuu malabka kuu soo daraad filato muuqiisa fandhaalkuu ku soo qaadayaa hoosta waa finishe fidhiqooyin suna baa ku jira hoosta foollada farxadaan qalbigu kuu furnayn foolashana dhaafin fardadaha laguu furay guryaha xararka loo fiilay fadhiyada xariir iyo farshaxan lagu yar footeeyey fallaadhaha ku hoos jira ninkii faarax garan waaya iyo kii fogaaday misana faranna soo qaata ee furiyey amarkoodii ee qaatay falashkooda isagoo fidmada ku wadoo diinta laga fayday ayaynaan fahmayn oo intaa faan ka dhiganaaye fursad bay ku raadgoobayaan faylashaad qoriye galowgii hadday fiintu cido waa u fiirsaday oo ka feejignaaday waxbay fiiriyaan abid naanays xun waxa kuugu filan ceeb horuu falay ee ka fogaada waxay faafiyaan ka fogaada gaalada malcuun faajira dhalae gabaygaasna waa faallo waa tahay filimadan waa runa markaad dee u fiirsaday habdhaqanka bulshada gaar ahaan hablaha si weyn waxaa uga dhex muuqanaya facaayilka iyo ficilada ay samaynayaan jirayaasha ay xiiseeyaan ama ay ku daydaan taasina waxay baal maraysaa dee dhaqankeenii iyo sooyaalkeenii iyo dee diintii islaamkaydaynu haysanay waxaasoo dhanba filimku wax kullida ayuu fidiyaa waa tixaadun qiimo badan oo dee fariin culus u sida cidda ay ku socotay habla ah waxaan rajaynaynaa tixdani markay gaadho inay dee ku dhaqmaan oo ay daanjireedka ku qabtaan kana faagtaan dhibaatadiisa waa tahay tixdaa iyada waxaa jirta tu kale oo haddii ilaahay kuu sameeto ogol yahay u jawaaba oo la yidhaahdo aayahoodii sama iyadu waa filaya inay garaarta iyadu maxay ka warramaysaa marka iyaduna habluhu ma aha dee ma wada xumo habluhu waa tahay oo dee hadday dhaho way wada xun yihiin qaar badan oo wanaagsan baa la helayaa in filimaano daawan oo diinta yaqaano oo ilaahay garanaya dee qaar urursan haye oo dhowrsan waa tahay markaa waxay ila ahaatay bal inaan kuwaa ka reebo oo dee isku mid maaha inaan magaranaysaa ku dayanaysa waxay xalay daawatay iyo inaanaan warba u haynin markaa dee cadaalad darrona way noqonaysa haddaan hablihii isku wada qaado o idhaahdo gebigooduba waa caynka
inaan la isku daarturin qofkii dambi loon eeda la saaro qofkii dambi loon eeda la saaro waata markaa tixda hablaha Soomaalida bay ka warramaysaayo kuwa aan dee filimaantaasi wareerin waata markaa waxay odhanaysaa wax kastoo unkamaya oo adduunyada yaalla asalkuu ku arooriyo abka uu tirsanayo astaamaa la gartaa abwaankii gabay yeedhsha ee qaryaan isku sheega kol hadduu is ammaanay uuladii inuu joogiyo inuu baaxir ahaado alifkuu ka bilaabiyo arartuu marinayiyo dulucdaa ubucdaydiyo eraygaa la gartaa samadoo isjiqsiisay ifafaalada roobka inuu caawa da'aayo heega soo ururaysiyo hilaacoo alaglayniyo onkodkaa la gartaa ayaantii la yaboohshay ee bahay siduu sheegay ifafaaladu qeexiyo aayadaa la arka waa qiyaamii habliheenna asluubtiyo edabtoo lagu faaniyo akhlaaqdii nebi sheegiyo dhowrsanaan la ammaaniyo asluubtaa la gartaa xishoodkii la amraayiyo asturnaanta wanaagsan iyagaan ka salguurin ilaahay hadalkiisa iyagaan inkiraynoo caddeecaa la gartaa isirkoodu ma liido oo ilaahay xaqu siiyiyo kama aasna wanaage ehelkood jecel ah qolo hay-adaaba waxay idhaahdaan waxaan u doodaynaa xuquuqda haweenka ilaahay muu dulmiin haweenka dulmi lagu hayaana ma jiro markaa intaas iyagay jawaab tahayo isirkoodu ma liido oo ilaahay xaqu siiyiyo kama aasna wanaage ehelkood jecel ah naxariista agtaalla waa mid ay u dhasheenoo lagu uumay dhammaane arxankood badana quruxdii ifka weeye oo waa ilayska baxaayiyo iftiinkaoo galaclayne ashqaraar badana tiyoo geedi la aaday agabkii gurigoo dhan marka awrta la saaro igankay degayaaniyo marka oodu dhammaato udubkay qontoshaaniyo dhigahay ku adkayniyo bilicdaa abjadkoodiyo quruxdaa aqalkoodiyo ardaagaa la gartaa isirkood ma nacaanoo idilkee dunidoo dhan hadday eegga tagaaniyo aradkooda ballaadhan haddii aad ku arkayso isma doorinayaanoo asluubtay ku dhagaanoo anshaxaa la gartaa inanay la dhasheenoo isirkooda ah mooye inta ooga caddaaniyo afrikaan ma gayaan garaarkaas intaas ku dheey waa jawaab yaroo intaa oo tixdii daba socota intii filanka daawatay fiidka meeraysatay inay hablo wada ahayn intaa fiidka meeraysanaysa waa tahay may dhammaan tameeraysanaysa iyo taasturanba labadaba waxay qiimuhu waxa weeye labadaba ha qiimo mudan taa dee feedha raacdayna in dee ilaahay xaqa ku soo hanuuniyo oo jidka saxda garato ayaan ugu ducaynayna waxa jirta geeraar yaroo kooban oo la yidhaha rajo sababtu ku dhashay iyo xilligu kugu curtay iyo eriyadaba rajo wuxuu bishii labaad ee 2016 waata dabeedna maalin maalmaha ka mid ah Facebook ku soo qoray intaa yar waa wax yar ma dheeraba markaa wuxuu odhanayaa waxaan markaa ka hadlayay dadkan suugaanta ku ciyaareen moogta waata ama heeso bilaa macnaha ka sameeyaanoo aan wax macno soo buurin ku jirin oo aad hadal moodayso muusiga la saaray waata markaa waa heesaan durbaanka la saaray way ama waxyaabo kale dadka qaar baa tiriya waxa suugaan ahayn oo ma garanayso markaa wuxuu odhanayaa gabaygii inuu riiqmay ama uu raxan raaday ama uu raran gaadhay ra'yigaan ka arkay ma riwaayad jirta in iblaysu riyaaqay oo ciyaal ku rabaasay marna raab lagu qaado ra'yigaan ka arkay waxaan raatub galin iyo roodhikowda miya heesihii rugta ciirtiyo bad haween ku rartaan iyo raadaqaasidka tiisa hadday soo rogayaan in raggaan ku aqaan kiyo beenu raxleeyay mid yiraahdo runtayo xalay baan ku riyoodayo rayidkeena ku waaliyo mid ku raadiyo xooliyo raasamaaliya daaro raxraxleeya ayaamo hadba ruux ku amaana ra'yigaan ka arkaayo rag baa faan ku adeegtay ri isnuugtay miya geeraarka intaasan ka xasuusna waa tahay oo dee aan gabayga milkihiisa iyo suugaan qiimihiisa la dhowro waa tahay abwaanku mar walba waanada iyo wax sheega bulshada kala ma haro inta wuxuu u baxayaa waa nal u baxaya bulshada si uu tuso wanaagooda goldololooyinkooda fartan ugu fiiqade tooraha guushu ay taala ama loo marayo maansooyinkaaga waxa kamid ah tix la yiraahdo waanada waanu garanaynayo
وحوي ووعدي وحشاق يقف وسيد صن الله تلمامه سيدو كتشبينا لو قدوه تحدوانا iyo xilliga ay soo baxday iyo hadda tixdawaan waxay soo baxday bishii 12 2016 waata marka waxay ka hadlaysaa iyadu arrimaha bulshada u badan tahay waata marka waa tix geeraara iyaduna marka waxa bulsho weyn idilkeedii umadaadu warqaado hadalkaad warinayso wixii aanu qalmaynin wad ka weecin lahayd oo weersan baad xulataa wabigaadu muraado waraabkiisa yar doonto haddaad weelka u qaado wadaanta darsanayso dhinacii wasaqooba wad ka weecin lahaydoo walacdaad shubata haddaad weylala joogto ama aad waxaraa iyo yar weetaysa idaa yar waraabaa godadkiisiiyo weera meelu ku nooliyey waad ka weecin lahaydoo waqal meelu ku hooriyo naqa waad ku furta kiyo wiiga ka raadan haddaad geel wadartiisa u kaxayso waraabka marka uu wada dhaafo habeenkaa wejigaagu waardiyuu ka yaho wabaxaad ka jirtaayo markuu waagu dilaacona soofka waad u wadaa anna maanta warkaygiyo weedhahaan tabinayay iyo warsamow eraygayga waddadan marsho eega waxaan soo taxayaaba waa su'aalo wacnaayoon wadartooda mug weyntayoon la wareeray dhammaane wadartooda baldhowra isagoo warankaagu cadow gaala ah waabsho oo col wajaafi karaaya innagoo ah walaaliyo ehelaan kala waarinoon weligood kala raysanoo hal wadiiqa ka beermay maxaa laysu wareemiyo wadnaha laysu jaraa innagoo ah walaaliyo ehelaan kala waarinoon weligood kala raysanoo hal wadiiqa ka beermay bal maxaa waalid caygiyo walla been iyo dhaartiyo wanjalaad iyo tuugo wanaag loogu arkaa alla weyne dartiisa waqfigaad bixinayso qun yar baa la wadaaye bal maxaa wan la siiyey waratooyin saboola giddigoodba websaydiyo warka loogu daraayo faanka loogu wadaa kol haddaad warshad leeday ood wasaaqday xashiishka warqad baa u yarayde wixii aad sinacsiisay wiqcaddaa gurigaagiyo wardigaa ku ag yaalla waad ka weecin lahayde bal maxaa wadda dheer iyo wadiiqooyinka gaaban wasaq loogu shubaa haddaan waano ku siiyo idil naatiyo waarso waayahooda baldhowra oo waladkii ku iyagoo kala weecsan oonay diini waxdaynin waladkii ku barbaariyo waalidkii ku ciraystay waddada aynu xaadho wanaag bay warkaanoo waddankooda dhammaanna mar inaanu wareegin wacad bay ku maraanoo wadka way ka xigaane innagoo la wareernay oo xorayntiina wiiqday oo wadar loogu dhammaaday bal maxaa wakinayo bal maxaa wahsi keenayo bal maxaa waladkeenna wirwir aanu lahayn iyo Washington u siraaday bal maxaa waddankeeniyo waaxidkii laga doorto ilaa uu ka wareego waajibkii ka ilaado halkii uu waddankiisa ka wanaajin lahaaba bal maxaa wabal gaalo waxba aan tarayniyo wafdi baan wadnaayo waxaray mudayaaniyo waxaan la isku wareerin weerahooda ka yeeray afartaa ka wareegay oo si wanaagsan u sheegayo waa taxaad u habeeyay war kaleetana hooya dhagihii alla weyne waanadiisa ka weecsho dhagihii alla weyne wacdigiisa ka weecsho waanadu inkiraayo wadaadkii xaq u sheega uu ku sii walfayaayo waddadaa tusinayso uu ka weecanayaa haddaad waabu hargeyso bacadku iswaraayo dadku waa 100 nooco weligii dunidoo dhan nin wanaaji yiraahday isagaa ku wareeriyo waliba u dambaysa garaarkaasna intaas ku dhin waa tahay ilaahay cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka boorta baraka ku galiyo yeerigaba suugaan mudakara oo kaalin gala ayaad tirisay intaayo wixii ka dambeeyana waxaan ku rajaynaynaa inaad noqoto raggii bedeli lahaa xaya galayd garaarshihii weynaa hibada garaarka loo saaray dhageystayaal intaasaynu ku koobinaa barnaamijkeenii suugaan iyo sooyaal waa anigoo mawlid aadan biixiya iyo farsamayntii iyo quraaridii maxamed mawlid ismaaciil quraysh intaanu mid kaloo kale ku kulmayno waxaanu iskaga tegaynaa baridada islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu